magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland xaalad khatar ah ayaa ka taagan sansaan dagaal ayaana ka socoto oo waliba dagaal dhiig badan uu ku daato inuu ka dhaco ayay qarka u saaran tahay waxaan ogsoonayn in xalayto Axmed Madoobe uu soo saaray jadwalka doorashooyinka 8 bari doorasho lagu qabanayo ayay xalayto soo saareen waa 8 bari oo maxaa 8 bari lagu qabanaya la tashiyadii odayaasha arjika gudoomida musharaxiinta soo xilida golihii wakiilada doorashada waxa way qabashada doorashada gudoonka golaha wakiilada soo qabashada arjiyada musharaxiinta Jubbaland waa cid marka loo ogol yahay inay soo sharaxdo iyo qabashada doorashada madaxweynaha 8 bari waa doorasho aan horay loo sii shaacinin waa doorasho aan horay jadwalkeeda loo sii samaynin jadwalkeeda dhanba xalay baa la soo saaray 8 bari bayna ku gabagabo waliba 7 bari bay ku gabagaboobaysaa 25ka bishan hadda aan ku jirnay November ayaa midda madaxweynaha ugu dambaysan la rabaa in la qabto waa sida jadwalkooda ku qoran waxaa maanta ka soo daba saaray oo maanta shir ku yeeshay magaalada Kismaayo midowga musharaxiinta Jubbaland ee isbedel doonka waxayna soo saareen bayaan culus oo iyagana ay sheegeen guddi doorasho inay magacaabayaan kadibna guddiga doorasho ay soo saari doonaan jadwalka doorasho ee madaxweynaha Jubbaland guddiga horena ee wax soo saarayna Axmed Madoobe magacawdo Axmed Madoobe u shaqeynayaan oo shaqadoodii filla Soomaali waxay ka socotaa filla Kismaayo ka socotaa maxaa diidaya marka in la isfara saaro oo la isku awood sheegto oo dagaal uu ka dhaco magaalada Kismaayo waxaa laga yaabaa muuqaalka qaybtii hore ku yiri Kismaayo dagaal bay u muuqataa inaad ka naxdo hadiiba midowgii musharaxiintu ay go'aanka soo saareen Axmed Madoobena uu go'aanka soo saaray maxaa diidaya Kismaayo in lagu dhex dagaalamo oo shacabka ay halis galaan waan dul istaagi doonaa muuqaalka ma ku qaada dhigi doonaa go'aanadaas iska soo horjeeday Axmed Madoobe iyo midowga musharaxiinta waxa kale oo iyadana aynu mid iyo labo ka oran doonaa Axmed Madoobe 13 sano uu joogay waliba 14 sano 14 sano uu joogay 13 sano ba iska 13 sano uu joogay muxuu qabtay maxay tahay sababta ragga la socda iyo bulshada kale ee taageersanba ay ku taageerayaan ee maanta maxaa lagu taageeri karaa Axmed Madoobe maanta loogu ogolaan karaa 5 sano kale in la siiyo ama 4 sano kale in la siiyo iyadana waan iftiiminaynaa bulshada Soomaaliyeed ee Jubbaland cid ay ka qarsoon tahay wax qabadka Axmed Madoobe waan u iftiiminaynaa wax qabadkaana ay iftiiminaya waxa kale oo maalmahan magaalada Kismaayo ka socda caga jugleyn handadaad dadka shacabka loo geysanayo sidoo kale to warbaahinta madaxa banaan sida TV-yada private-ka loo leeyahay ama gaarka loo leeyahay waxaa la yiri war kama duubi kartaan midowga musharaxiinta wax warood ka duubi kartaan ma jiro war saxaafadeedyada hadda ay soo saarayaan wariyaal iyaga la socdo micnaha kaamiraystayaal iyaga la socda noo soo duubayo soo diraya oo waxa weeye mid walba marka meeshii ee cid soo gudbin karto u diraya Axmed Madoobe wuxuu yiri TV warkooda tabin kara ma jiro TV warkooda baahin kara ma jiro iyadana waan dul istaagi doonaa dhanka kale dawladda federaalku wali go'aan adag bay ku dhagan tahay xaaladihii ugu dambeeyay iyo wixii ka soo kordhay iyadana waan taaman doonaa muuqaalkan like saara fogeeya meel dheer ka tuura aynu ku bilowne Axmed Madoobe xalay waxaan ogsoonayn jadwalkii doorashada 8 bari lagu soo gabagabeynayo inuu ku dhawaaqay 25ka bishan hadda aan ku jirno ayaa doorashada Jubbaland la soo gabagabeyn baa la yiri waa 25ka bishan aan ku jirno waligay ma arag oo ma maqal doorasho aan horay loo sii shaacinin la sii ogeyn oo waxba laga sii waxay sheegeen bishaas ay dhici aan la sii dhihin oo intii maanta la shaaciyo la yiraahdo muddo 7 bari ah ama 8 bari ah ayaa waxa dhan soo xulidii baarlamaanka ee la tashiyadii odayaasha ee qabanqaabadii musharaxnimadii waxa weeye wixii oo dhan tii madaxweynaha gudoonkii wixii la dooran lahaa oo dhan 7 bari baan ku dhamaynaynaa hadda ka horrow noloshayda horta ma arag adduunkana inay ka dhacday ma filayo afgambi waan arkay wax lagu la wareego oo waxa weeye xubnihii muhiimkaana isla markaaba la magacaabo laakiin maamul sii dhisnaa oo doorashaan qaban yidhi oo 8 bari baan doorasho ku soo gabagabeynayna yidhi Axmed Madoobe horta ka horrow ma arag Axmed Madoobe xalay ku dhawaaqay
25 August la soo gabagabayn baa la yiri doorashada dhan xataa midda madaxweynaha musharaxiintii midowgii musharaxiinta Jubbaland ee Kismaayo ku sugnaa arintaas xaloo dhan la tashiyay ka sameeyeen shir jaraa'id bay goordhow qabteen oo shir ay ku yeesheen magaalada Kismaayo gaar ahaan guriga musharax madaxweyne Cabdi Cali Raage guriga meeshu ka degan yahay magaalada Kismaayo ayay iskugu tageen oo shir ay ku qabteen shirkooda jaraa'id waxaa ka soo baxo ay ka shirayeen guddigii doorasho ee hadda jadwalka doorashada soo saaray Axmed Madoobe uu maalmo ka hor magacawday horay bay u diideen inay u qaadaceen oo dhaheen anaga guddiga nama quseeyo habraac saxana ma soo marin dastuurka Jubbaland uu baal marsan yahay ka dawladda federaalkana uu baal marsan yahay xeer hoosaadkii Jubbaland waa baal marsan yahay anaga waxba nagama gelin bay horaan soo saareen go'aan ah iyagana hadda markaa maadaama isla guddigii la diidanaa jadwalkii doorashada ay baahiyeen iyaguna guddi doorasho oo cusub oo doorashada Jubbaland qabanaya ayay ku dhawaaqeen inay sameynayaan caawa la rabaa marka inay soo saaraan guddi doorasho oo Jubbaland galabtaan dhahne ayaa la rabaa in la soo saaro guddiga doorasho ee mucaaradku musharaxiinta midowga musharaxiintu ay soo saarayaan waa guddigii doorasho xor iyo xalaal u qaban lahaa midowga musharaxiinta Jubbaland ama musharaxiinta Jubbaland ciday doonaan baa noqdaan ka soo qeyb hatta Axmed Madoobe waa furaya waa ka soo qeyb gali karaa bali Axmed Madoobena 25 bisha baan la igu caarashubaya bulay oo caarashubu diyaarsan 25 bisha magaalada Kismaayo marka xaalad adag baa ka taagan cabsi xoogan baa laga qabaa in dagaal lagu waliba waxa weeye lagu faraha lagaga gubto oo dhaxmaro musharaxiinta iyo sidoo kale Axmed Madoobena waa ogsoontihiin oo magaalada Kismaayo lama hadli karo lama qosli karo lama aamusi karo lama dhaqaaqi karo laygama aragti duwanaan karo waxaan ogeyn laba sameyn karo cidii sameysana de wixii ku dhacayada taqaana ayuu 13 sano ku soo haystay magaalada Kismaayo marka wuxuu isku day doonaa musharaxiinta inuu u daato dagaal ku qaado weeraro ciidamo ka amar qaato uu adeegsado saacadaha inagu soo aadan ama maalmaha inagu soo aadan waad arki doontaan markay guddi doorasho ay shaaciyaan oo ay dhahan anaga doorashaan qabsanayna Axmed Madoobe saasuu sameyn doonaa dawladii federaalkana way kala dhamaadeen oo garab kama haysto dawladihii uu calaqaad kala lahaana Ethiopia markii laga reebo Soomaaliya isku xiyin waa lagu soo dirdiray oo xaggaas xasan ba xagga ka soo wada qandhuufanaya marka wuxuu isku day doonaa marka musharaxiintan horta inuu madaxa ka guro isku day doonaa laba arrimood buu u adeegsan karaa midu waa mid inuu shabaab ahaan iskaga dhigo wada qarxiyo meesha jawaan ku qarxiyo iyo inuu weeraro oo weerar ku qaado oo weerar toos ku qaado labadaba waa suurtagal Axmed Madoobe waa tacticada iyo habka uu adeegsada mar walba ee dadka uu ku laayo doorashadii hore 19 waad ogsoonaydeen ergadii ka imaatay dal iyo dibadba iskaga timid waliba qurba joog u badnayd oo waliba waxa weeye in dadkii Jubbaland waliba Kismaayo u dhashay ayaa hotelkooda ku wada qarxiyay gabigooda oo halkaas ay ku leedeen ku dhamaadeen marka Axmed Madoobe weerar buu qaadi doonaa musharaxiintuna waa u diyaarsan yihiin horay bay waxay u sheegeen waan dhiman karnaa laakiin Axmed Madoobe hadaad moodaysa magaalada Kismaayo inaad uga awood badan tahay ciidanku waa qabiil nin walba ku jira annagana waxa weeye adiga wax cabsiyon ka qabna ma jira bay dhaheen horay bay u cadeysteen waliba ragga ugu cadcad dhowrka nin saddex nin ugu cadcad horay bay go'aankooda u cadeeyeen marka Axmed Madoobe qorshihiisa uu iska wataayo waad arkayseen hadda xarunta gurigiisa hadda dadku saas waxa weeye odayaashiibu u yeedhyaranaya intii dhowna qaatiyaasha ay xogaa mishaarka u qornaaye waaga hore mishaarka uu siinayay iyo kuwaas u yeedhyeeraya uu leeyahay kaalaya imaada waxa weeye soo baxa oo la tash maanta waa maalintii la tashiyada lagu leeyahay odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada golaha wakiilada Jubbaland ee 75 qabiil walba odaygii markaa xildhibaankiisa soo xuli lahaa ayaa hoosta uga dusayay isagu u aastaystay odayna mee waa rag isagu u qorshaystay weeye magaalada Kismaayo marka dagaal bay foolanaysaa hal qof hal cid baa ka badbaadin karta hal dhinac baa ka badbaadin karta magaalada Kismaayo in dagaal la isku farasaaro shacabka Jubbaland haday door muhiim ah ka qaataan oo ay xaqiiqada ka hadlaan oo cadaalad u garsooraan oo labada dhinac waxa weeye ay si dhadhaxaad oo cadaalada ay u galaan oo runta ay sheegaan oo ay ka dhabeeyaan waxa maanta meesha yaala ay u istaagaan way badbaadin karaan magaalada Kismaayo hantida aragtay ay taalee shacabka iyo masaakiinta iyagana waliba tabaalaysan dawlad haysanin
13 sano afduubka ku jiray in hadday rabaan inay xabad ka badbaadiyaan dhibaato ka badbaadiyaan way ka badbaadin karaan. Sidee uga badbaadin karaan? waa in shacabku ay banaanka u soo baxaan dhahaan anaga dagaal ma rabno, axmedow qorshahaad wadata dooni mayno, musharaxiin ay qorshahaad wadataan dooni mayno, qorshada dhexaada ha la iskugu imaado. odayaasha dhaqanku waa inay istaagaan, ganacsatada ka ganacsata magaalada waa inay istaagaan, waa in aqoon-yahanku ay istaagaan oo xaqiiqada iyo waaqaca iyo waxa la isku hayo ee sababta ka dhigi kara magaalada Kismaayo inay burburto dagaal lagu qaado, dagaal uu ka dhaco oo shacabi ay ku dhamaadaan, waa inay loo istaago oo waxa weeye wax la isla qabta weeye. laakiin haddii la yiraahdo hal shakhsi un hal la dhowrto, wuxuu dhahaa ha loo daayo, wuxuu dhahaa loo fuliyo, ha laga aamuso, yaan laga daba hadlen, ama wuu masaxan yahay, hadduu khaldan yahay hadduu saxay maxaa iga galay haddii la yiraahdo adeer cidda ugu horeysa dhimanaysa waa adiga, caruurtaada, ehelkaada, hooyada, yaabaha, qaraabadaada, hantida burburaysa waa hantidaada. marka macquul ma noqonayso in laga aamuso Axmed Madoobe oo shib laga dhaho walaaqashada iyo sidoo kale dhoobaysiga oo mar walba dhoobaysanayo masiirkii ummadda reer Jubbaland iyo sidoo kale afduubka bulshada uu ku haysto in la dhowrtaayo maaha. maxaa loo dhowrani? Axmed Madoobe haddaan maanta arki lahayn wuxuu qabto, wuxuu inoo qabtay aan arki lahayn, okay bay ahlay. war Axmed Madoobe ma waxaan ahayn baa laga faa'iiday cagajuglayn, handadaad, afduub, dilal, qarxin, tarxiil ma waxaan ahayn baa laga faa'iiday. ilaahay baan ugu dhaariyay anaa dad ugu dhawe maxaa laga faa'iiday Axmed Madoobe? war Axmed Madoobe anaa dad ugu dhawe maxaa laga faa'iiday Soomaaliyay? ilaa meeshan Soomaali baa iga daawanayse maxaan ka faa'iiday Axmed Madoobe 13 sano 14 sano? bal sheega waxa laga faa'iiday. ma waxaan afduub ahayn baa laga faa'iiday? ma waxaan dil ahayn baa laga faa'iiday? ma waxaan cagajuglayn ahayn baa laga faa'iiday? ma waxaan cabsi gelin ahayn baa laga faa'iiday? ma waxaan tarxiil isimadii dhaqankii iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii la tarxiilo waxaan ahayn baa laga faa'iiday Axmed Madoobe? maxaan ka faa'iiday? bal sheega waxa laga faa'iiday Axmed Madoobe. ilaahay baa inagu dhaariyay. war maxaan ku taageernaa? war ogaadeen maxaan ku taageernaa? dad kala taageersanna ma jireen. Axmed Madoobe dadka kale way afduuban yihiin, waa dadka afduuban ogaadeenow maxaan ku taageernaa Axmed Madoobe? ilaahay baa inagu dhaariyay. war ma qabiil baan ku taageernaa? ma qabyaalad baan ku taageernaa? kuwan taagtaaganna waa ogaadeen, kuwa isbedelka raadinaya ogaadeen weeye. haddaad leedihiin qabiil aan ku taageerno, kuwan isbedelka raadinaya ee shacabka Jubbaland inay badbaadiyaan u taagan ee leh war kada ummadda sidaa kada war hor dhaaf leh ee magaalada Kismaayo ku sugan dhammaantood waa ogaadeen. ma cid kale ay nagu jirta? cid kale ma nagu jirta? Axmed Madoobe marka bulshadan way afduubnaanaysaa iyo ku afduubnaanaysa bulshada xor ka dhig. inaga ogaadeena isku laynayna magaalada Kismaayo eber baan iskaga dhigayna. shalay haddaan Barahiiraale kula dagaalanay, haddaan shabaab kula argagaxiso kula dagaalanay, haddaan lahay waxa weeye Barahiiraale wuuna duleystay, heel wuuna duleystay, argagixisayna duleysata aan lahayn, maanta Axmed Madoobe ina duleystay oo ku dhex dagaalamayna Kismaayo ku dhex dagaalamayna. sidii shalayto Barahiiraale isagoo meyd wata looga ceyriyay magaalada ayaan Axmed Madoobe isagoo meyd wata inagoo isku dhamaanay oo isku baaba'nay ayaan tan isku ilka beelaan magaalada waxa weeye ninba nin ku dhagaya, ninba nin xaqiiqada isku sheegayna, runta isku sheegayna. haddaan Axmed Madoobe ragga u durbaantumayo aan la qabanin oo waliba reer buu ka dhashay ogaadeen markii laga tagay aysan qabanin, waan is cunaynaa hilbaheena, inaga is cunaynaa. xaqiiqada markaan ka hadalno weeye, xaqada markaan ka hadalno weeye. war Axmed Madoobe intaa ka badan bulshada inuu hortaagnaaday waa xaraam, waa dullinimo weeye. waxaa loo baahan yahay marka Axmed Madoobe inaan gacanta laga qabto. haddii doorasho xor iyo xalaala uu gelayo oo hanaan saxa ha soo galo, cid u diidan ma jirto. hadday ku soo baxo doorasho marka lagu wada qanacsan yahay siday u dhacday sax weeyaan, cidna kuma haysato. laakiin aniga isku caano shubaya, anaa Kismaayo iskale, anaa Jubbaland iskale, anaa saa raba yeelaya, anaa